runtii meel aad iyo aad iyo aad u qurux badan baa maanta laygu casuumay waxaan jeclaan lahaa asxaabteedana idila wada aragtaan meeshaas aad bay qurux badan tahay oo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga saad wada aragtaan rabadaantii gabagabadeedii baa lagu jiraa runtii intii aan afurayay waa meesha ugu quruxda badneed aan ku afuro saad wada arkaysaan because waxaa dee meeshan hal meel iskugu wada yimi taariikhdii hore wada arkaysaan oo aad u qurux badan laydhiyo aad u dhacaysa haddana dhismayaasha cusbaayo dambe aan anagu ku afurinay gudaheeda halkan waa beertiis aad wada arkaysaan waxyaabo fara badan baa kulmay sidaa daraaddeed aniga maanta waxay u tahay maalintii ugu quruxda badnayd ee aan ku afuro magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaan maanta sidoo kale igu helinayaa afurka ila socday ninka loo yaqaano suldaanka Istanbul xaaji ayuub maanta bal ka waran meeshan iyo quruxdeeda iyo afurka aan ku samaysanay wallahi maanta lama qiyaasi karo meeshan meel aad iyo aad u cajiib weeyaan afur wanaagsan rabadaantii aan ku soo gabagabeynay maalmihii khayrka badnaa halkaa waxay naga xigaa taariikhihii hore Istanbul ee naga xiga oo aad u qurux badan taariikhihii Istanbul oo kana أنا تاريخ إسطنبول بيه ninkan taariikhihii Istanbul buu kamid yahay kamid weeyaan سلام الله asxaabta aad u salaamay أيوب ما شاء الله الله نكسر هذا إسطنبول إن شاء الله أيوب باني نسود وين دونا ما شاء الله aad u mahadsantahay إن شاء الله بإذن الله الكريم waxaan kugu leeyahay badnaa Khaalidow intii aad Istanbul joogtay adigoo doonta halkan soo istaagaya saad halkan noo tusto asxaabta meesha quruxda badan maanta aynu wada joognay wallahi la yaab kuwa badan yahay meeshan la yaabadeeda hadii la shiraada ka warramo lagama warrami karo lagama geeyo karo tara kamid ah maanta aynu joogno marka dalkiina dhisto baa lana dalkiina dhista la rasaad meelaha quruxda badan oo kala heshaan ma sha Allah aad u mahadsantahay